faafidda islaamka ee Afrikada Galbeed waxa uu ka soo fufay laba jiho. Qaybta galbeed waxa uu uga soo gudbay xeebaha Atlantiga isagoo saldhigtay dalka Senegal. Qaybta barina waxa uu soo dhaxmaray waqooyiga Suudaan isagoo caga dhigtay dhulka Hawsaha, dariiq ahaanna soo maray lama deegaanka ballaaran ee Bornu. Laba siyood ayuu islaamka uga hanan qaaday galbeedka qaaradda madow ee Afrika: ganacsi iyo jihaad. Ganacsiga waqooyiga Afrika waxay saldhig u ahayd Carab ilbixsan oo ganacsiga maashay, waxayna dib iska tuseen inay alaabtooda u bixigayaan galbeedka Afrika. Galbeedku waxa uu caan ku ahaa dahabka iyo noocyada kala duwan ee macdanta, waxa uuna soo jiitay muslimiinta iyo ganacsatada Carabta. Magaalooyin badan ayaa ka abuurmay ganacsiga saxaraha ee muslimiintu ku yimaadeen galbeedka Afrika, waxaana ugu caansanaa Adagas oo Mauritania ka tirsan, Timbuktu, Chiin iyo Kukiya. Bayac mushtarigii waqooyiga Afrika waxay noqdeen hay'adii u xooganayd ee ka qayb qaadatay in islaamku ku faafo galbeedka qaaradda Afrika. Qaabka labaad, jihaad. Koox lagu magacaabi jiray Al-Murabitun Al-Muraabidis oo ka soo dhaxbaxay isbahaysi ay yeesheen qabaa'ilka Lamtuna, Gudala iyo Masufa oo ahaa qabiilooyin reer guuraa oo Berber la oran jiray, kuna noolaa dalka hadda loo yaqaan Mauritania iyo Morocco iyo Saxaraha Galbeed, ayaa jihaad ku gaarsiiyay diinta islaamka galbeedka Afrika iyagoo ka soo tilaabay dhulka u dhaxeeya Dra Niger iyo webiyada Senegal. Magaaladii u horeysay ee jihaad ugu gaarsiiyay diinta islaamka markii loo fiiriyo galbeedka Afrika waxay noqotay meesha loo yaqaano Negroland. 1042 markii ay maraysay taariikhda miilaadiga, Abubakar oo hogaamiye ka ah kooxdani Al-Rabitun ayaa weeraray gobollo badan oo ka tirsan boqortooyadii Ghana, taasoo sababtay in 1076 ay burburto boqortooyadii Ghana ka dhisnayd, shacabkeediina ay isu bedelaan muslimiin. Dhanka waddanka Mali, Kangaba oo ahayd magaalo ay aasaasteen qabaa'ilka Mandika ayaa gacanta islaamka gashay taariikhdu markii ay maraysay 1050, waxayna magaaladani noqotay halkii ay ka bilaabatay boqortooyadii Mali ka iba furantay ee uu aasaasay ninkii la oran jiray Sundiata Keita oo ahaa awooga Mansa Musa oo lagu sheegay qofkii ugu taajirsanaa abid ee dunida samamara, inkastoo aanay jirin raasac la isku raacsan yahay ama la isku halayn karo oo si saxan u xisaabiyay hantidiisa. Sidaa ayuu islaamku ku socday ilaa uu gaaray inta badan galbeedka qaaradda madow ee Afrika.